السلام عليكم أصحابتك على جلال كسود وهذا ومركلة مغالك ولكن هاس هوركيس هذا هذه أنت مركي كوجوري سياسة وقت جنالك اسكود جنالك إن لك ريسيس وكل أنتودنا أصحابته ديس ولكن عاوة مدونيو إن كهذا النوع وحل حريرة تريدني وحربنا إن كهذا النوع أنا ذا باكل مهم كوا هذه أتاي دلنيره waxaan ogaanay badi 70% dhalinyarada Soomaaliyeed inay ka cabanayaan oo ay qaati ka taagan yihiin dhibaatada aniga iheysatayba before sidaan ahaa after waa kana yes wajida waxa isu weydiiseen markii aan ku soo abluuqliyay bar kamid ah barahayga bulshada ee social media aan ka isticmaalo fariimo badan ayaa i soo dhacay fariimahaasna badi waxay u badnaayeen niyo maxaa sameysay maxaa isticmaashay waxay dantu ugu kaliftay marka in aan fiidiyogan uga hadlo min bilow ilaa dhamaad processkii amray iyo inta ay ugu qaadatay marka koobkaaga shaaha soo qaado ina keen oo aan fadhiisano laakiin hayloobin ina la gelisid I think wala gelisa fiican muuqaalka yes subscribe wasart okay waxaan rabnaa wadadii aan ku tagi lahayn 1k subscribers waan la gaarsiin kartaan waxa yeelay mowduucan aad ayuu muhiim u yahay okay aynu bilaawno marka marrabo ina warku ugu daaliyo okay dhalinyarada badi 70% waxay ka cabtaan waxa loo yaqaan bidaarta iyadoo gaarin da'dii loogu talagalay ama da'dii ay ku soo bixi lahayd bidaarta waxa arkaysaa 20 jir bidaar leh waxa arkaysaa 25 jir bidaar leh 30 jir bidaar leh bidaarta caadiga inay maado 40 iyo wixii ka dambeeyay inay noo imaado ayaa la rabay laakiin hadda waxa arkaysaa 40 iyo 40 laanba ma kala lahan geedii waxa waa iyadoo ku gasha arkay bidaar sibiq bay ku gashaa sibiq bay ku gashaa adoo ordaysa waxa arkaysaa tuntii dhinaca ka maqan waana waxa anaga dhanba nawaalay oo hadana stresska nagu sii kiciyay okay maxaa kula gudboon inaad samaysid okay waxa jira qodobo dhowr ah oo aan doonayo inaan kula wadaago haddii ay tahay koortag haddii ay tahay daaweyn iyo haddii ay tahayba talooyin guud ahaaneed iyo processkii aan soo maray wadadeedii inoo bilaabo marka waxaan qasabay inaan isweydiiso hortoro maxaa keena bidaarta waa su'aal la rabo adiga inaad isweydiisid horto maxaa keena bidaarta bidaarta dhowr waxyaabood ayuu ka imaadaa oo qofka dhalinyarada ay ku gashaa waxaa ka mid ah heredity dhaxal ahaan qofkan inay u soo weerartay labo stresska saddex shaambooyinka sida qaldan ay u isticmaalaysid afar qabeeska badan shan kareemada iyo saliidooyinka aad isticmaaleedid oo aanan ku habboonayn in la mariyo timahaaga shantan qodob iyo ka badanba way jiraan oo keena bidaarta haddaba sidee bay u keenaan marka su-aashu waa taa tusaale qabeesku sidee buu u keenaa qabeeska wuxuu u keenaa shaambada aad ku qabaysanaysid ma ahan mid quality-geeda uu fiican yahay labo biyaha waxa ku jiro maado markii in badan biyaha aad ku dhaqdid madaxa meeshii duleelkii tinta ay ka soo bixisay daarinaysa duleelkii tinta haddii la daariyana waxa qasab ah tintan meesha hadda kugu taalo inay dhamaato maxaa yeelay maadadaas waxay la bixaysaa fitamiinaadka ku jira tinta ay dhuuqaysaa marka isku day marka madaxaaga in weegii hal mar aad dhaqdid weegii hal mar dhaq inta kale faraha ka qaad ina fahantaan rajaynata okay kareemadani iska ilaali kareemada amarsanaysin iyo shaambooyinka iyo saliidaha amarsanaysin iska ilaaliya please iska daa ka tag faraha ka qaad okay taa waa taa heredity-gana waxba ma laga qaban karnaa dhahay oo waxaa laga yaabaa inay ku gasho okay qodobka labaad ee aan rabno maxaad uga hortegi kartaa marka ilaan horaa waxaa loo dhahay koortagu wuxuu ka wanaagsan yahay daawada okay mar walba aad isku aragtid timahaagu inay daadanayaan sidoo kaleetoodna aad aragtid in timahaagii ay gogo'ayaan isku day inaad la xiriirtid dhakhtar ku takhasusay oo takhasuskeeda leh maqaarka iyo timaha haddana aan natiijo lahayn isku day marka dhakhtarka ay sida qaaska u qusayso inaad raadisid oo aad la wadaagtid arrintaada okay
maxaa lagaaga baahan yahay marka adi ahaan maxaa lagaaga baahan yahay waxaa lagaaga baahan yahay in processka aad aqbashid inta ay kugu qaadataba sidoo kale intoodna aad raacdid talada iyo tusaalaha uu ku siinayo dhakhtarkaaga waayo waa muhiim jiddan haddii aad rabtid isbedel in wax adiga jeebkaaga kaaga imaado inaadan samaynin waana qaladka ugu badan ee dhalinyarada badi ay galaan haddii aad laakiin u raacdid wadadii saxda ahayd ee dhakhtarku ee ku faray waxaa hubaa in isbedel aad arki doontid aniga sidan ayay ahayd before inta aanan aadin wax dhakhtar ah sidan ayay ahayd kadib dhakhtarkii markii aan aaday sidan ayay noqotay okay maxaad u baahantihiin marka waxaad u baahantihiin kow inaad qadarisid processka sidoo kaleentoodna aad aqbashid resultiga aad maalin walbo ka heleydid haddii ay tahay xagga horumarinta haddii ay tahay dhan walbo waxaa laga rabaa in aad qadarisid processka aad mareydid okay finally meeqa ay ugu qaadatay in sidan timihaygu ay noqdaan waxay ugu qaadatay muddo 6 bilood ilaa iyo 5 bilood ah ay ugu qaadatay waayo December ayaan bilaabay processkan haddana waxaa la marooyaa May isku darso marka waa December January February March April May oo hadda bishii 6aad ah 6dan bilood madaxayga sidan ayuu noqday ha ka fikirin marka koowgii lacagta dad badan oo waxa arkay lacag meeqa laga qaatay lacag meeqa kaaga baxday ama waxa jiraan dad markii bidaar yar ay isku arkaan ina ordaan beerasho ku degdegay please taas ka ilaali waa arin halis ah oo dhibaato ku keeni kara wax yar ay kaaga bixi karaan ayaa wax weyn ku bixinaysa haddana result ma lahan taada kale iska ilaaliya degdega tirada badan oo aad isleeysaan waxaan ina helaan raba ina tima isoo laabtaan raba dadku isku mid maahan dadku isku wada maskax maahan waxaa jiraan dad u tageen dhakhtarka maanta u tagay haddana ilaa waaga aan wax result aanan haysan sida daraadii dadkaas processkii ay qaldeen waana qasab processka hadaa qaladid inaadan wax natiijo aadan helin oo lacagtii ku ay ka baxeen waxaan rajeynayaa wax badan aan ka faa'iideen haddaba haddii ay tahay markii kugu horeysay ayaa soo boqotay janaalka waxaan ku sii soconaa wadadii 1k subscribers please like muuqaalka sidoo kale intoodna sii share gareey. Have you an accent? Bye.